بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin dadweynaha degmada Cabdulcasiis oo ayagu isxilqaamay oo markii ay waxa la yiraahdaa Soomaalidu ku maamaadacay ayaa loo ciladaanshaay markii ay bilaabeen in ay ayagu wax ay leeyihiin isku soo biirsadaan kadib in maxaan ku yiraahdaa gobolka Banaadir iyo dawladda iyo intii kale ka qayb qaadan kartana ay ka qayb qaadatay arrin aad iyo aad u weyn waaye waa bogaadinaynaa waana amaanaynaa dadweynaha reer Cabdulcasiis aad iyo aad ayay u mahadsan yihiin ayaga iyo maamulkooda gudoomiyaha degmada u horeeyo waa dadaal fiican dadaalka halka ka sii wadaan leenahay gudoomiyaha gobolka guud ahaan gobolka Banaadir asaguna sidoo kale dadaalkiisa dib u dhiska dalka ah gudoomiye Madaale safarkii hore uu joogana waa la ogaa wixii magaalada uu ka qabtay haddana meeshii meel ka dheer uu ku socdaa waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inay isku tiirsanaadaan oo ayagu ay wax qabsadaan oo xoogooda iyo xoolooda maanta jidkan daarahan quruxda badan ee dhinacyaha ka jiro dhan macno u yeelay awal daara macnala iyo guriye macnala ma ahayn laakiin maanta macno iyo qurux iyo haybad ay leeyihiin dadka wax haysta ee ganacsatada ah iyo dadka alla wax siiyana sidoo kale in ay wax dhisaan oo dalka ay dhisaan inay sidaan u qurux badan tahay ha arkeen shalay sawirka meesha ku yaalo oo dhiiqada iyo biyaha iyo qashinka oo deganaa wadada dhexdeeda iyo maanta meesha aan dhex taaganahay labay kala yihiin isku mid ma aha waxaan rabnaa marka dadku inay sidaa inta u arkaan ay maxaan ku raadaa bixiyaan xoolaha si loogu dhiso wax yar oo la dhiiba ayaa intaan isu tagay hal qof kaligeed intaan dhis hadii la dhilaa inkastoo aan ogahay 10 ama 100 dhisi karta inta hadda wadada ay leegtahay dalku inay joogto hanti haysato haddana gacma isla wada jira wax lagu wadada hadda waa la wada leeyahay dadka reer Cabdulcasiis wax ku leh dadka magaalada Muqdisho degan oo dhamaa wax ku leh marka wuxuu in la wada leeyahay ay sidaas macna guud ugu sameynayaan waxa kale oo aan runtii aad iyo aad aan ugu faraxsanahay magaca wadada loo bixiyay Allah u naxariistay madaxweyne علي مهدي محمد waan jeclaa lahayn xaflado badan oo sidaana oo qurux badan iyo horumar badan oo dalkii gaaray in uu nala arko madaxweyne علي مهدي laakiin allihiisi jeclaa ayaa xaqiisa u waday waxaan leenahay naxariistii jannana Allah siiyo wixii dalkan iyo dadkan uu soo qabtay ilaa noloshiisii laga soo bilaabo dhalinyaronimadiisii ilaa haddana ajir iyo xasanaad Allah ka siiyaan leenahay oday Soomaaliyeed ayuu ahaa intii uu noolaay oo dhan marka ilaahay ha u naxariisto waa run dadkeena waxaan rabaa inaan u sheego qof kasta oo maalmaha kamida dadka iyo dalka wax u qabatay intay doonaan hal ekaatee maxuu ahay waa la xusi doonaa hadii alla yiraahdo magaceeda la sheegi doonaa meelaha mar walba meelaha ku haboon ayaa lagu sheegi doonaa lagana sheegi doonaa marka dadka Soomaaliyeed waxa qabsoomay ayagay u qabsoomeen xoolahooda iyo aqligooda iyo xoogooda ku qabsadeen maamulkana waa u mahad celinayna in abaabulka heerkaas sameysteen degmooyinka kale ee Muqdisho iyo dalka daafihiisa ku yaalo dhan sidaas ha ogaadeeno markaad adiga wax qabsato ayaa wax lagu la qaban karaa laakiin adigoo gurigaaga iska jiifo waxba laguma qaban karo inaad tabar badan aad leedahay oo hanti badan aad leedahay shuruud ma aha laakiin rabitaan in uu kugu jiro ayaa shardi ah rabitaankana waxa ku muuqana ilaa qalbigaaga waxa ku jira dadka ma daalacan karaan mana arki karaan ilaahay un baa qalbigaaga waxa ku jira garanaya marka aad dibadda la timaado oo aad tira anugu 10 shilin aan ku deeqa aad tira oo aad tiraado wadaan rabnaa inaan dhisano anaa bilaabay 10 shilin aan ku bilaabay aad tiraado markaas waxa la arkayaa in ay macna kuugu fadhido wadada mida $1,000 ku dari doona mida $100 ku dari doona hadii alla yiraahdo lianna baahidina waa la yaqaan laakiin mar walba waxa leeyahay war dadkaan waxaan ama dhaqaalaysan waayaan ama ayaan rabinba ayaga ama ay hadhow isku dilaan ama ay kala boobaan war waxa dadka reer Cabdulcasiis faa'iidada ay qabaan waa tan dadka deegaanada joogay ee ku dagaalamaya mashruuc yar markii la keeno anaa qabanayo oo kisbeesa ka raadinayo war deegaankow adiga ma lihid dadka kale ilaan deegaankii maadaama isku filano dadka kale oo lacagaha bixiyay ayaa hadii laga faa'iideena ay tahay inay ka faa'iido adiga wadada iyo maxaan ku rahaa horumarka dhismaha
iyo maxaan ku rahay isbitaalka iyo iskuulka la dhisay ayaa faa'iidadaadu waa taas oo sanado badan iyo waqti badan sii jiraya laakiin ninka wadadan dhisay ee macidaadkiisii iyo qalabkiisii keenay ee juhdigiisii keenay waxaa laga yaabaa wax yar oon macno lahayn inuu ka faa'iido marmarka qaarkoodna waaba lagu khasaaraa waan garanaynaa qandaraasyada marka dadka Soomaaliyeed inay fahamkoodu saa deegaanada dadka deganow war xoolo isku soo darsada waa la idin badinayaa waana la idin biirinayaa ogolaada wuxuu inay dhismaan faa'iido waxa idin waxa qabsoomayo wadada iskuulka isbitaalka barta caafimaadka waxa ceelka la qoday laakiin anigu maan qodo anigu maan dhiso anigu maan siiyo ma muxuu ahay degaankayga la siiyo ma reerkayga la siiyo maxaa reerkaa la siiyo reer ma ahan joojiye waxaas dhaqankii muddo dheer meesha nagu hayay waaye aan ka gudubno sidaasaa dhismayaasha iyo horumarkuna noogu socon mar kale waxaan aad iyo aad u bogaadinayaa u hambalyaynaa gobolka Banaadir guud ahaan gaar ahaan degmada Cabdicasiis iyo degmada warta nabadda oo aan ayaduna hadda wada intaan oo kala aan ka soo furnay degmada warta nabadda runtii ayaduna dadaalan caadi ahayn wadada aan soo furnay intaan oo kale way ka fool xumeed wayna ka qaab darneed ee degmada warta nabadda haddana meel qurxoon oo la mari karo waay wuxuu markay dhismaan asaasi u qurxan yihiin degmooyinka kale ee ayaguna dadaalka sameeyay ama sameyn doonane sidoo kale waxaan leeyahay hambalyo waana bogaadinaynaa aad iyo aad ayaa u mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh